haddii aan halkaas ugu gudbo usbuuc ciyaareedka 25aad waxaa suurtagal ah in usbuuc ciyaareedka 29aad kulamadii la ciyaari lahaa loo soo bedelo usbuuc ciyaareedka 26aad sidaasna ay usbuuc ciyaareedka 26aad uu u noqdo mid ay kooxo badan ay ciyaari doonaan min laba kulan sidaa darteed haddii aad tahay maamule rajeynaya in uu groupka liiga uu hogaaminayo amaba tartanka guud ee FPL-ka uu rabo inuu ka faa'iideysto oo kaalmaha hore oo makaalintiisa u ilaashado ama saaxiibkiisa ka horeeyo uu rabo inuu ka faa'iideysto inuu ka hormaro waxaa wanaagsan in aad u dejiso ama u diyaar garoodo sidoo kalena aad si fiican uga warhaysid haddii aan marka aan taabano usbuuc ciyaareedka 26aad kulamada suurtagalka ah ama kooxaha suurtagalka ah inay yeeshaan min laba kulan waxaa ka mid ah kooxda Aston Villa ayaa wajihi doonta kooxda Leeds iyo Sheffield United kooxaha Leeds iyo Sheffield United ay wajihi doontaa sidoo kale kooxda Burnley waxay wajihi doontaa Tottenham iyo Leicester kooxda Chelsea ayaa sidoo kale wajihi doonta Manchester United iyo Liverpool Crystal Palace ayaa wajihi doonta Fulham iyo Manchester United Everton ayaa wajihi doonta Southampton iyo West Brom Leicester ayaa sidoo kale wajihi doonta Arsenal iyo Burnley Liverpool ayaa sidoo kale wajihi doonta Sheffield United iyo Chelsea Manchester City ayaa sidoo kale wajihi doonta kooxaha West Ham United iyo Wolves Manchester United ayaa wajihi doonta Chelsea iyo Crystal Palace Sheffield United ayaa wajihi doonta Liverpool iyo Aston Villa Southampton ayaa wajihi doonta Everton iyo Tottenham ayaa wajihi doonta Burnley iyo Southampton West Brom ayaa wajihi doonta Brighton iyo Everton Wolves ayaa wajihi doonta Newcastle iyo Manchester City kulamadaas ama kooxahaas waxay leeyihiin min laba kulan usbuuc ciyaareedka 26aad haddii aan ku xasuusiyo sidoo kale usbuuc ciyaareedka 27aad laba koox ayaa ciyaari doona min laba kulan kooxaasna waxay yihiin Manchester City oo wajihi doonta Manchester United iyo Southampton oo wajihi doonta Sheffield United iyo Manchester City kadibna usbuuc ciyaareedka 28aad kulamada si caadi ay u dhici doonaan oo koox markaas kulan dheeraad ah lama jiri doonto laakiin waxaa markaas cad maadaama kulamada 29aad la soo wareejiyay oo loo soo wareejin doono haddii sidaas noqoto in kulanka usbuuc ciyaareedka 29aad uu noqon doono blank game week oo ay yaraan doonaan kooxaha ciyaari doona marka si aad ugu sii tashatid oo aad ugu diyaar garoowid oo haddii aad bedel sameynaysid aad u haysatid oo toddobaadkaas aadan banaanka ugu soo dhicin oo inkastoo toddobaadyaal badan ay qabsan doonto oo ay yaraan doonaan marka kulamada ay yaraan doonaan laakiin mar walba waxaa ku wanaagsan in ciyaaryahan ka mid ah ciyaaryahanadaas oo toddobaadka blank game week 29aad u haysatid mar walba si aad uga hortagto in ay dhibco la'aan kugu dhacaan toddobaadkaas kooxaha Arsenal iyo West Ham ayaa iswajihi doona toddobaadkaas 29aad Aston Villa iyo Tottenham Brighton iyo Newcastle Everton Fulham iyo Leeds iyo Newcastle iyo Brighton Tottenham iyo Aston Villa ayaa intaas ayaa iyagana leh kulamadaas marka haddii aad u diyaar garoodid oo aad si fiican u xulatid ciyaaryahanadaada waxaa suurtagal ah in aad si fiican aad uga faa'iideysto xilli ciyaareedkan sidoo kale waxaa ka faa'iideysan kartaa jibaaradaada oo aad ilaashan kartaa toddobaadka 26aad oo kale waxaa ka faa'iideysan kartaa jibaaradaada maadaama kulamo badan ay la ciyaari doono haddii suurtagal noqoto weli lama xaqiijin laakiin suurtagalnimada ah in kulamadaas la ciyaari doono usbuuc ciyaareedka 29aad loo soo wareejin doono usbuuc ciyaareedka 26aad ayaa aad u badan maadaama toddobaadkaas la ciyaari doono FA Cup-ka oo quarter final la marayo marka kooxaha quarter final-ka ciyaari doona marka kulamadooda oo dhan ayaa la keenayaa usbuuc ciyaareedka 26aad marka waxaa idin rajeynayaa guul maamulayaasha raba inay sidaas oo kale uga faa'iideystaan la socdo FPL Somali Facebookga iyo Twitterka iyo Instagramka oo dhan waxaan ku soo daabacnaa xogaha la xiriira FPL-ka si maalinle ah aad iyo u mahadsantihiin saaxiibayaal subscribe saara channel-keena
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.